ma doonaysaa inaad noqoto software engineer xirfadlaha adigoo jooga gurigaada isla markaana adeegsanaya internetka oo keli ah leedahay riyo ah inaad la shaqayso shirkad caalami ah ma doonaysaa inaad xirfadaada dhisto adigoo adeegsanaya internetka oo keli ah ma doonaysaa inaad ka mid noqoto qayb ka mid ah isbeddelka digitalka adduunka Fast Track Technology Academic ma ahan oo keli ah maxad wax lagu barto ee waa goob soo saaro arday tayo sare leh oo ka dhex muuqata suuqyada caalamka ee dhinaca shaqada waxaa diyaar kuugu ah macallimiin loo carbiyey hababka casriga ee waxbarashada kuwaasoo hubiya in arday kasta inuu helo faham buuxa iyo taageero joogto ah waxbarashadan waa mid ku salaysan tayada waayo aragnimada iyo mustaqbalka dhabta ah ee suuqyada shaqo ee maanta iyo berrito maxadkan oo ah mid soo saaro injineer IT oo ku takhasusay software engineer data science cyber security iyo cloud engineer isla markaana si ardayda ka qalan jibisay khibrad shaqo ama internship sidoo kale maxadka ayaa waxa uu ka shaqeeyaa sidii uu ardayda u geyn lahaa shaqo mana ku xirna oo keliga inaad joogto dalkan UK waxaana ka baran kartaa caalamka oo idil adigoo joogo waxaana ku shaqayn doonta haddii uu Rabbi subxaanahu wa ta'aala idmo hab remote ah ama hab online ah haddaba wixii faahfaahin ah kala xiriir taleefanada shaashada ku qoran waxaan wanaagsan daawadayaal kula soo dhawaada barnaamijkeeni labaad aynu ku eegayno duqeymaha isdaba joogga ee dowladda dalka Iran ay ku qaaday saldhigga militariga ee ugu weyn ee Mareykanku uu ku leeyahay dalka Qatar waxaynu idiin haynaa muuqaaladii ugu dambeeyay iyo markii jawigu uu isbedelay markhaatiga nool oo ka hadlay sidii ay wax u dhaceen iyo markii dareen duqeynta ay markii horeysay ay dareemeen sababta Iran ay u weerartay saldhiggan military ee Qatar ku yaala iyo muhiimadda Mareykanka uu leeyahay iyo waliba dowladda dalka Iran oo sheegtay inay arrintaanu aysan ahayn gabagabadii ay tahay bilow meesha khubaro fara badan ay leeyihiin Iran sida ay u hadlayso iyo weerarka ay qaadeen marka la eego waa mid markaas laga soo wada shaqeeyay ma laga soo shaqeeyay fikirkaas mid kale oo lid ku ah ayaynu idiin haynaa waa 23 bisha 6 sanadka 2025 meel kastoo dunida ka joogtaan daawadayaal waa idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga marka ugu horeysa daawadayaal aynu eegnay operationkan ama howlgalkan military ayaa loogu magac daray mid ka duwan magacii hore ee kan ku wajahan xukuumadda Israa'iil oo kaas oo la yiraahdo Operation True Promise 3 kan waxaa la yiraahdaa Bishara al-Fatah ayay Iran ugu magac dartay waana ka duwan yahay marka ay noqoto sida loo qorsheeyay ayay tiri madaxda kala duwan ee khubarada ee ka shaqeynaysa iyo waliba hubka ay loogu talagalay in loo isticmaalo waa budo iyo biyo weeye ama waa kaafiya kala dheeri waa la kala saaray shuqulna iskuma lahan hawlo aan shuqul isku lahayn weeye marka la eega ay leeyihiin sida ay hawshu haatan u socoto waxayna Iran sheegtay inay arrintaanu bilow tahay ayna soo wado duqeymo kale oo fara badan xilli hawada sare xilli magaalada Doha ee dalka Qatar laga dareemay qaraxyadaas isdaba joogga ah oo markaas magaalada gelgeliyay waxaynu idiin haynaa mas'uul sare oo markaas professor jaamacad wax ka bara halkaa ku taala oo markaa asagoo ka warbixiyey hase yeeshee dowladda dalka Qatar ayaa dhankeeda sheegtay inay gantaaladaas ay soo rideen oo afka ciidda ay u dareen dowladda dalka Mareykanka ayaa ka hadashay iyo dowlado kale oo fara badan ayadana aynu eegi doono balse professorkan oo la yiraahdo Kamar oo ah markaas professor sare oo wax ka bara jaamacadda Georgetown University ee dalka Qatar ayaa waxa uu sheegay in uu markaas ku nool yahay meel 18 mayl u jirta saldhiggan military ee la weeraray waxa uuna yiri annagoo nolol maalmeedkeena caadiga ku jirno oo jawigu uu degan yahay ayaa hal mar jawigii isbarogay ayuu yiri daartii aan ku jirnayna markaas ay nala gariirtay sida oo kale daaqadihii ayaa burburay ayuu yiri oo markaas qaraxa iyo dhawaaqu ay markaas soo rideen waxaan arkay ayuu yiri dad aad u fara badan oo markaas qaylinaysa waxaan ay ka baxayaan oo kala yaacaya iyo qaar ilmadu ay ka qubanayso waa markhaatiga nool oo goobjoog ah waxa uu markaa arkayay waayahay Iran ayaa waxa ay dhankeeda sheegtay in hubka ay isticmaashay xagga culayska iyo khatarta uu leeyahay inuu isku mid ay yihiin kii Israa'iil ay u isticmaashay inay ku duqeyso xarumaheedii nuclearka hadalkaas muhiimad gaar ah ayuu leeyahay inaynu dul istaagnana waa daruuri iyo sababta Iran ay u dooratay in ay markaas ay saldhiggan military ay weerarto
qodobadaas ayaa nagu soo socda iyo weliba sida khubaradu ay uga falcelisay iyo sida loogu kala fog yahay xagga fikriga ee markaa ku saabsan iiraan weerarkay qaaday inuu gabagabadii yahay iyo inuu bilow yahay ayaa aad iyo aad khubarada ugu kala tagtay ayaa noo soo socda wax yar diyaarleyda. shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennisbridge Road. dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 baloog oo kala ah A iyo B. dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareeg ah. 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareeg ah. sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses. dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarasa quraan, supermarket, wiish xawaaro sare leh, kaamirooyinka ammaanka, CCTV, baakinka gawaarida, goobo carruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, gym ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda. daawadayaal ku mahadsantihiin waqtigiina isku soo noqod wanaagsan. haddaba daawadayaal wadamada ilaa ay haatan ka falceliyey weerarka Iiraan ay qaaday oo aad u jeedaan saameyntiisii halkan waxa isdaba taxan iyo markaas magaalada Qatar dusheeda wixii ka dhacay wax yar ka hor xilliga barnaamijkan aynu duubayno waa muuqaalkii u dambeeyay ee laga soo qabto markaas ama saxaafadda la soo geliyey. haddaba daawadayaal falcelinta ka dhalatay haddii aynu eegno dhowr wadan ayaa arrintan ka falceliyo aan jeclahay inaan dulmara kuwooda ugu horeeya. dowladda dalka Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay diblomaasiyadda in la xoojiyo islamar ahaantaasna wada xaajood lagu soo noqdo oo la wada hadlo. hadalkan waxaa horey uu si adag ugaga jawaabay hadalkan hadal la mida wasiirka arrimaha dibadda Cabbaas Caraaji ee dowladda dalka Iiraan oo yiri diblomaasiyadda iyo wada hadalku waa fiican tahay laakiin markay xiniye iska taabasho ay arrintu timaado oo weerarna lagu soo qaaday xilli la wada hadlo ma joogo ee nooda isu keendaaya. waxaa xusid mudan iyada oo 2 maalmood ay ka dhiman yihiin wejigii lixaad ee dowladda dalka Mareykanka iyo dhigeeda Iiraan oo inay ishor fariistaan la rabo oo markaas xaaladdu gabagaba ay tahay. Iiraanna ay sheegtay in ay markaas diyaar u tahay in ay nuclearkeeda ay maadada la yiraahdo uraniumka ee markaas ay tayeysay inay tayada hoos u dhigto gantaalada xalistaana dowlad kale oo saddexaad oo lagu kalsoon yahay loo dhiibo ayadana cunaqabataynta laga qaado ayuu Netanyahu duqeyn bilaabay xilli la sheegay inuu ogaa haddii Iiraan ay soo bandhigto fadhiga ku soo bandhigto aan dhicinin garnaqsigaas culus ee Mareykanku inuusan ka lug bixi karinin dabadeedna uu duqeyn la beegsaday. taas oo maanta sababtay Iiraan in nuclearkeedii la duqeeyo inkastoo la isku waafaqsan yahay khubarada in badan oo ka mid ah madaxa bannaan in Iiraan haba yaraatee nuclearkeedii wax gaaray aysan jirin. meesha Mareykanka iyo Israa'iil ay leeyihiin dhulka ayaanu dhignay. waayahay you make up your mind. haddaba dowladda dalka Faransiisku sidaas ayay leedahay. haddii aynu ka tagno boqortooyada Sacuudiga ayaa aad iyo aad u cambaaraysay sheegtayna markaas in ay tahay act of aggression isla mar ahaantaasna dowladda dalka Qatar lagu xadgudbay markaas gobonnimadeeda iyo madax bannaanideeda gobolkana markaas ay ka dhalin karto qanaaso siyaasadeed. Sacuudiga sidaas ayuu u hadlay. waayahay dhanka kale daawadayaal dowladda dalka Qatar wasaaraddeeda arrimaha dibadda war ka soo baxay ay ku sheegtay Qatar inay xaq u leedahay in markaas ay iska difaacdo ay markaas weerar tagto maadaama lagu soo xadgudbay madax bannaanideedii iyo gobonnimadeedii iyo weliba hawadeedii. sidaas awgeedna Qatar inay markaas aargoosan doonto. ma waxaynu u akhrinaynaa Qatar ayaa Iiraan weeraraysa oo markaas dagaal soo galaysa. khubaradu waxay leeyihiin uma badna laakiin waa weji gobaadsi weeyaan iyo cagajuglayn laakiin uma badna Qatar in ay weerar ka qaado. waxaan goordhow tegi doonaa Qatar Mareykanka iyo Iiraan iyo doorka Qatar ay halkan ka ciyaarayso ee fartanku ay ku fiiqan tahay.
dhinaca kale mas-uul sare u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Maraykanka ayaa sheegay duqeymihii Iiraan ay la beegsatay saldhigga military ee Maraykanku uu ku leeyahay dowladda dalka Qatar haba yaraatee wax khasaara oo ka dhashay oo nafeed inaysan jirin. qoraalku waxa uu dhigmayaa sidaas khasaare nafeed oo ka dhashay inaysan jirinin haba yaraatee. laakiin ma laga yaabaa khasaare maal inuu ka dhashay? waa su-aal isweydiin leh. oo aga military la burburiyey ma laga yaabaa inay gebigoodaba dhulka la soo dhigay oo waxba aysan burburinin? ma laga yaabaa inay jiraan khasaare laakiin la qarinayo? waa su-aalaha waaweyn ee la isweydiinayo maadaama ilaa iyo haatan wax dhabta iyo khasaaraha ka dhashay aan la xaqiijin karinin. laakiin warbaahintu waxay qoraysaa khasaare nafeed inuusan jirinin across the board. way isku wada waafaqsan yihiin marka laga soo tago Iiraan oo tiri hubkii ay loo isticmaaleen oo kale dhinaca tayada iyo tirada ayaa loo isticmaalay. waa qodob muhiim oo imaanaya goorno soo dhawaada. waa hagaag haddii aynu intaas ogaga baxno daawadayaal, dowladda dalka Iiraan ayaa laftigeeda arrintan ka hadashay, isla mar ahaantaasna madasha wadatashiga amniga qaran ee dalka Iiraan ayaa waxa ay sheegeen inaysan marnaba duqeyntoodu aysan ku wajahnayn dowladda walaalaha iyo saaxiibka fog ay yihiin ee taariikhiga ee dalka Qatar. gobolkan aysan Iiraan marnaba doonaynin in ay markaa qalalaaso amni darra ay ka dhaliso, laakiin duqeyntu ay ku wajahnayd oo keliya ayay yidhaahdeen Maraykanka oo markaas xadgudub weyn ku sameeyey madax banaanida dalka Iiraan. waayahay waxaan eegayaa waxa kale ee wararka kale ee soo baxay ee ku saabsan markaas. waa hagaag 10 daqiiqo ka hor soo dhacaya Cali Khamenei ee waxa uu leeyahay Iiraan marnaba aqbali maysa in inta lasoo weeraro ay gacmaha laabato oo ay Iiraan markaas iska aamusto. message uu soo dhigay markaas social media ayaana sidaas ay ku qoran tahay. Iiraanna ay duqeymaha wadi doonto ilaa ay ka xaqiijiso ammaankeeda. dowladda dalka Lebanon ra'iisul wasaaraheeda ayaa ka hadlay, isla mar ahaantaasna cambaareeyey weerarka markaas lagu qaaday xaruntaas military ee Maraykanku uu leeyahay. waa hagaag daawadayaal, haddii aynu intaas ogaga baxno wararkaas kala duwan ee ka imaanaya halkaas. ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa iyaga laftigooda statement soo saaray ama saxaafadeed soo saaray, sheegana markaas Iiraan in ay markaas tahay wadan resilient ah, wadan adkaysi leh, karti leh, taariikh fogna leh, isla mar ahaantaasna heegan ugu jira inay difaacaan habeen iyo maalin. weerarka ay qaadeenna la yiraahdo markaas ay u tala saarteen, hadalkan hoosta ka xariiq, ay u tala saarteen markaas ay u tala saarteen yaa abaa cali yaa abaa cabdullaahi al-Xuseyni ayay u tala saarteen ayay leeyihiin Iiraaniyiintu. khatam al-anbiya center headquarterkeeda ayaana markaas laga abaabulay, waxaana hoosta laga raaciyey sallallahu calayhi wasalam. waayahay taas Iiraan ayay ahayd daawadayaal. waxaan haatan aadaynaa arrin muhiimadeeda iska leh iyo doorka Qatar ay halkan ka ciyaaraysa, balse intaa ka hor Ammaan ayaa iyada laftigeedu si ku meel gaar xirtay hawadeedii sare sida Qatar oo kale, oo Iiraan markay balaayo afuufto gobolku inuu ka haybeysanaya ayaa muuqata. dhanka kale Iiraan hubka ay haysato ay ku dagaalamayso sida gantaalada oo kale inta badan waa waxay iyadu samaysatay. meesha wadamada Carabeed ee ku hareereysan oo dhan marka la eego taangiyada iyo gantaalada ay haystaan wadamo kale laga keenay, gaar ahaan Maraykanka, oo la sheegay dadka khubarada ay sheegeen haddii markaa laga bakhtiisto qalabka tiknolojiyada ay ku shaqeynayaan mid ka mida oo tilaabo qaadi kara inuusan jirinin, oo ay la mid yihiin tooyaasha ciyaalku ay ku ciyaaraan. fikirkeena maahan iyo aragtideena midnaba waase dadka khubarada waxa ay leeyihiin meesha Iiraan waxa ay afuufaysa iyadoo ay samaysato. dowladda kale ee hubkeeda iyadu samaysataana waa dowladda dalka Turkiya oo iyadu markaas safka hore kaga jirta wadamada u dhigma iyada marka la eego dhinaca soo saarka hubka caynbacaynka way ku talax tagtay ayaynu oran karnaa. waayahay haddaba daawadayaal, khubaradu waxay aad ugu kala aragti duwan yihiin weerarkan sida loo qorsheeyey. in badan oo ka mid a waxa ay aaminsan yihiin Maraykanka iyo Qatar iyo weliba waxa ka wada shaqeeyay Iiraan, waxaana arrintan salxay oo gundhig u ah dowladda dalka Qatar.
qatar iyo iiraan waa far iyo faraanti, maraykanka iyo qatarna waa far iyo faraanti. si markaas ay u caragoyso iiraan ayay khubaradu leeyihiin. ila soco, khubaradu waxay leeyihiin si iiraan ay u caragoyso dadkeeda loogugu qanciyo iiraan inay rarkii iska rogtay iyo bahdilkii lagu sameeyey inta dusheeda la istaagay waxa la doono lagu sameeyey. inkastoonu kasoo hadalnay samayntaa laftigeeda inay faro ka taagan tahay iyo su-aalo waaweyn, haddana waxaa leeyahay iiraan waxaa la rabaa inay carab baaba'do, dadkeedana la qanciyo. saldhiggii military ee ugu weynaa ee maraykanka ayaad weerarteen, waxa aad tihiin, waxaynu nahay dowlad aan fooda lasoo dari karaynin. arrinkaasu ma arrin macquul ah? maxaynu haynaa ee horay u dhacay oo aynu markaas dhihi karnaa waa suurtagal arrintani khubaradu ay rogrogayso? weerarkii ugu horreeyey ee iiraan ay qaaday 14 bishii afraad sanadkii tegay 2024 kadib markii israa'iil ay weerartay safaaradii ku taalay magaalada dimashq ee dalka suuriya ee dowladda iiraan ay lahayd. 14 maalmood ayaa la qorsheynaya weerarkii la qaadi lahaa. maraykanka iyo iiraan ayaa tilaabo iyo daqiiqad iyo sakan oo la socday meesha ay markaas iiraan ay weerarayso iyo nooca weerarka uu noqonayo iyo gantaaladay qaadayso. according to Professor John Mearsheimer, khabiirka weyn, waayahay tarutiyo kala miya waxba haba yaraatee khasaara ma geysanin, waa weerarnay, gacmahaynu laabanayna, iiraan is done. is that a case? mise arrintu intaan way ka weyn tahay oo iiraan waxaa la leeyahay hala wiiqo waxa ay samaysay oo ha laga dhiga dowlad aan meesha waxba ku haynin? aragtidaadu waa muhiim. fikirka kale ee kaa kasoo horjeedaan daawadayaal waxa uu yahay iiraan inay duqeynta ay hadda bilowday ay bilow tahay, isla mar ahaantaasna iiraan ay wari doonto duqeymaha, oo iiraan inay faraha laabato dhowaan rajo lagama qaba ayaa la leeyahay. waxaana arrintaas loo daliishanayaa in markaas iiraan duqeyntii loo geystay meesha loogaga soo duulay, sida gaardaduubka loogu qabtay xilli israa'iil iyagoo is hayaan oo duqeynta loogu geystay. arrintan weerarka ay hadda qaadeen iyo waxa loo geystay iskuma jaango-on ayaa la leeyahay. wax lagu qanci karana haba yaraatee ma ahan. iiraan intaan ka badan ayaa laga filayay, xilli haatan dowladda iiraan ka talisaa aysan ahayn dowlad la jecel yahay, muddo dheerna xilka haysay 79 ilaa iyo haatan ayay jirtaa. intaa dadku xukumayay cid rabtaa ma jirto, meeshay doontaba dowladaha ku taalleen. si kastaba daawadayaal ha ahaatee, dhinaca kale arrintan waxaa la leeyahay iiraan ayaaba qish bixisay oo waxay tiri hubkii naloo isticmaaloo kale ayaanu isticmaalnay, ciyaartu waa barbardhac. ciyaartu waa barbardhac weeyaan. waxbaa ii sheegaya inaynan ku qanacsanayn labadaas fikir ee kala duwan, ama aad mid u badan tihiin ama se aad isleedihiin labaduba waa macquul ama waxaanu wax laga soo shaqeeyey weeyaan. siday doontaba ahaatee daawadayaal ra'yigeena hoos nagula wadaaga. waxa aynu soo raadinaynaa insha allahu tacaala wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladdu meeshay marayso. waqtigiina waa idinkaga mahad celinayna, waa ku mahadsantihiin daawashadiina. nabadgelyo.